هو waxay igu tiri diyaarada aan kaaga sheekay dhigayso diyaaradan waxay ahayd diyaarad intii Hargeysa ka kacday magaaladii ay ka kacday dib u duqaysay waxay ahayd taariikh midow Soomaaliland soo martay maalin maalmaha kamid ah anigoo hooyadii la socda dharkii ciidii hooyisay binisay marka intaan sida loo casriyeen bay ahayd ay hooyo igu tiri ayaan hooyo ku hooyo diyaaradan maxay tahay marka ma garanin waxay hooyo igu tiri diyaaradani waa diyaarad midow taariikh midow ah oo Soomaaliland duqaysay waxaan ku yiri oo sidii hooyo u duqaysay hooyo waxay igu tiri Soomaaliland wax soo martay taariikh midow hooyo markaan guriga tagnaan kaaga sheekinayna mar dharka ciidan ku soo biya marka xiisaygu ay si aniga dharka ciidu bay may muuqan waxaan islaa tolo diyaaradan maxay tahay ma aarba meesha la iska saaray maxaa ku duugan wallahi aad baan u yaabanaa markii aan guriga mid baan hooyo ku yiri hooyo diyaaradii ii sheeg hadaba horta dharka ciid isku eeg baa igu tiri may ii sheeg baan ku yiri hooyo waxay igu tiri diyaaradan aan kaaga sheekay dhigayso diyaaradan waxay ahayd diyaarad intii Hargeysa ka kacday magaaladii ay ka kacday dib u duqaysay waxay ahayd taariikh midow Soomaaliland soo martay waxay ahayd dib weyn oo Soomaaliland soo martay kadibna ay ka soo kabatay imka wallahi aad baan dareenkaagu sidoo noqday markii way taariikhda kaaga sheekeysay aad baan u yaraa wax markii hore waxaan iska mooday ciyaar markii dambe imika aan yara weynaaday markaan sawirkan sawiri doono ayaan heeday hooyo ma xasuustaa maalinka iga sheekeysay waxay ku tiri haa waan xasuustaa hooyo waxaan ku yiri hooyo sawirkaasan sawiraya hooyaday ilaahay ii daayo Rooda Cali Cabdi Ismaaciil iyada igu dhiirigelisay sawirkan sawir diyaaradda waxaad ku dul qortay erayo aad baad u daayirtahay erayadan ma cid baad ka soo xigatay mise adiga maskaxdaada ka keenay aniga maskaxdayda ka keenay maadaama wax horta bini aadamku markasta wax lagu soo celceliyo maaragtay waxaas maskaxdiisa way galsaa anigana waxbarashada sidaan wax u barto si ka badan waxaan u bartaa Soomaaliland markasta la waxaan bartaa Soomaaliland taariikhdeeda walow aan gartaba laakiin ku soo celcishtaa marka erayadan aan ku dul qoray waa imika marka la casriyay baan sawirka sawiray waana in taaladan ay tahay taalo dul saaran diyaaradan ay tahay taalo dul saaran meel halka ku taala khayrgada oo ay tahay taariikh midow oo Soomaaliland soo martay marka erayada diyaaradda ku dul qoran maxaad nooga sheegi kartaa maxaa kamid ah laakiin markii aad qoraysay dareenkaagu sidoo ahaa diyaaradda aad sawiraysay amaba aad erayada ku dul qoraysay markaan diyaaradda sawirayay horta maadaama ay dhimaydii soo dhawdahay waxaan rabay inaan hibadeyda aan ugu dabaal dego oo heede hooyo markii igu tiri sawir waan farxay waayo waalidku markasta ilmaa wax ku dhiirigeliyaa wax wanaagsan dabadeed erayada hooyan ku yiri hooyo erayadaasan ku qorayaa wax kasta hooyadii baan kala tashtaa hooyo waxay igu tiri hooyo ku dul qor aad baa u fiican tahay waana maskax badan tahay erayadu waxa weeyaan taaladan oo dul saaran tahay diyaarad miig ah 17 ah waxay ka turjumaysaa dhacdo taariikheed xasuus leh oo soo martay Soomaaliland taasoo ahayd diyaaradii duqaysay oo burburisay madaarkii iyo magaaladii ay ka kacday 6 Diseembar 1988 aan ku dul qoray